أنو عادي سني أو عاد مودا فكر كين إن هذه الشيء كترته وحنينك برايفت كيلي هنا إن إليه هين عدو هيلس هانتدا إن كوضة دحيسانة وحلقة يابا إنا نهيلين عدو هذاش وحلقنا عالدا إنو كوان تونو دولة نماذا مركا لصاء أوريو وحوي إن أمدو وحا أيلاذا هاي كده حيالا إلاليو قفك برايفت كانا هانتدي سلو إلاليو سيدا شرعي وقري وحانا يرسل تاقيا هوتيلكا هرقيسة كلاب وسلطان آنو رنتي صاحبنا هاي وآدوغا هادلي هوتيلكا هرقيسة كلاب وهوتيل تاريخ دا سومالي لانكو آن وماقي عيسو ay dad badani kaan aragna uu dhegta kaga soo dhacay waa meeshii ugu horeysay ee laga dhiso cusbitaal Soomaaliland ahaan jirtay dad badan ayaan aqoon in lagu bilaabay goobtii ugu horeysay ee cusbitaal Soomaaliland laga dhiso ama Hargeysa laga dhiso inay ahayd Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninka iyo baadidiis aragtiba ka dhaxaysa haddii guri qof loo dhiibo oo markay baahidu timaado tiraalaya dadkii lahaabaa u baahan ama qofkii lahaabaa u baahan ee waxa weeye in loogu celiyo si bilaa turxaan isagoo maraya dowladduna dastuurka ayaa siiya hantideeda inay cid ka kirayn karto lana noqon karto mid dad ku leeyahayna ay la wareegi karto dastuurka iyo sharciga ayaa siinay dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koor ayaa soo bandhigay hantida dawladda xukuumadda Soomaaliland la soo wareegtay waqti xaadirkan balan jaleecno hantida xukuumadda uu hogaaminayo Musabbix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inta xukuumadda uu hadda garwadeenka ka yahay inta hanti ama ay dib u soo celisay ee ummaddu gacanta ku haysay hamaha kaydka shidaalka berbera ayaa ugu horeeyay oo la soo celiyay qaybta dhuumaha shidaalka ka soo nuuga ee maraakiibta kuna shuba kaydka hamaha shidaalka oo iyaguna kuwa ugu mudnaa ah qalabka hubinta tayada shidaalka ayaa iyadana dib loo soo celiyay oo dad gacanta ku hayay